Bismillaah, assalaamu calaykum. Maxaa caawa idinla wadaagi lahaa? Malaa'igta iyo sida ay kugula jiri karto. Malaa'igta sidee ay ku difaaci kartaa? Malaa'igta se maxay kugu jeclaan kartaa? Malaa'igta se maxaa ku garan kartaa? Malaa'igta la joogaaga mar walbo inay ku jeclaato ayaan ku soconaynaa. Assalaamu calaykum. Waxaan idinla wadaagi lahaa malaa'igta sida ay kugu jeclaanayso. Malaa'igta waxay kugu jeclaanaysaa marka hore in aad daacad noqotid, qalbadaadana wasaqda uu Ilaahay ka manacay oo dhan ka nadiifisid. Kadibna Allah jeclaatid, iskuna dhiibtid alle. Markaas ayuu alle malaa'ig kuu soo diraya. Laakiin shaqa ayaa ka horeyso malaa'igta alle intuu kuu soo dirin. Maaha inaad dhihaysid Ilaahu waa ku jeclahay, jeclow uu malaa'ig kuu soo dirayo maaha. Adigase waxaa qabanaysaa shaqada gudahaaga ayaa shaqa qabanaysaa. Qalbadaada waa wadnahaaga ayaa shaqa badan ka qabanaysaa. Camalkaaga ayaa dhadhaminaysaa. Dhaqankaaga ayaa dhadhaminaysaa. Toosnaan fara badan iyo daacadnimo ayaa sameynaysaa. Runta ayaad ku hadlaysaa. daacad nadiifa ayaa noqonaysaa. Qofna kama heebeysanaysid, qofna ma dhulmarinaysid. Dadkana ma kala jeclaanaysid, waxay rabaanba ha ahaadaane. Dadka oo idilba daacad ayaad u ahaanaysaa. Qof walba oo xaq kugu lahaana xaqiisa ayaa siinaysaa. Daacad sare oo alla dartiisa ka ah. Ana ujeeda lahayn, ha layga sheega ahayn, ha loo sheega ahayn, ha layga sheekeeyana ahayn. Ilaahay ayaa ku daalacanaya markaas. Qalbadaada markuu alla daalacdo ayuu alla ku jeclaanaya. Xadiis ayaa ka sugnaaday nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Uu yiri qofka markuu alla jeclaado, alla wuxuu yeeraa Jibriil, wuxuu dhahaa hebel waan jeclaaday ee jeclow. Markaas ayuu Jibriilna wuxuu wada yeeraa malaa'igta oo dhan, wuxuuna ku dhahaa hebel waan jeclaaday ee adigana jeclaada. Kadib malaa'igta ayaa samada awalba way kula joogtay. Waxay kugu karaahda haddii kugu arki jirtay way kaa carari jirtay. Laakiin markaan ciidan ayay ku noqonaysaa. Waxay ku noqonayaan dhagahaaga wax ku maqashid. Allah iyo malaa'igta ayaa kula jiraayo. Waxay ku noqonayaan dhagahaaga, wax ku noqonayaan subxaanallah indhahaaga, aragaaga, wadnaha ilan araga dhabta maha labadan indhood waxay yarkaan ka arkeen oo dhow. Waxa sare diibka hore gudaha dadka uurkooda ku jiro aad arkaysaa. Qof walba wuxuu yahay ayaa baranaysaa. Qof walba meeshuu ku jooga ayaa baranaysaa. Daacadnimada ayaa dadka lagu kala bartaa. Daacadnimada ayaa naftaada lagu bartaa. Daacadnimo ayaa heer sare lagu gaaraa. Adduunyo in la helaa ma aha. Guusha noloshu waa daacadnimo. Daacadnimo ayaa Allah kugu jeclaanayo. Malaa'igta ayaa si aan cadad lahayn kugu imaanayso. Malaa'igta ayaa ku helinayso. Way ku hadlayaan. Afkaaga ka hadlaysa waa malaa'ig. Dhagahaaga waxun ma maqlaysid. Xaqa ayaa sheegaysaa. Beenta ayaa diidaysaa. Runta ayaad ku hadlaysaa. Runta ayaad sheegaysaa. Beenta waa diidaysaa. Qofna kama heebeysanaysid. Sanku neefle kama heebeysanaysid runta inaad sheegtid. Allah kaliya ayaad adeecaysaa. Dadka oo dhanna daacad ayaad u noqonaysaa. Noloshaadu way isbedelaysaa. Shayaadiintu way ku nacayaan. Inta xunna waxaa laga yaabaa inay ku nacdo. Hadday ku nacaan wax weyn ma. Qof xun hadduu ku naco wax weyn ma. Wax kaala cararaya male. Laakiin Allah iyo malaa'igtiisa ayaa haysataa. Intii Ilaahay qalbadooda wax geliyay wanaagsanna way ku jeclaanayaan. Laakiin isbedel fara badan iyo nuur fara badan ayaa arkaysaa. Carabkaaga ayaa nuur noqonaya. Beenta ma qaadid. Xaqa ayaa sheegtaa. Khuraafaadka waa diidaa. Xaqa ayaa sheegtaa. Xaqiiqadii nolosha runta dhabta ah ayaad arkaysaa. Waxaad arkaysaa beenta iyo khuraafaad haddaad ku soo kortay iyo haddii kaleba. Waxaa kala baranaysaa waxyaabo fara badan aan qiyaasi karin. Subxaanallah. Marka waxaas oo dhanne ma gaari kartid ilaa aad korkaaga adiga gudahaaga u gashid. Dhaqankaaga ku noqotid. Hadalkaaga ku noqotid. Bal meel fariiso oo bal fikir. Naftaada ka fikir intaadan ka fikirin adduunyo.
naftaada ka fikir xaggay ku socotaa, way gaboobi doontaa, xoog bay beeli doontaa, way xanuunsan kartaa waqtiga maanta caafimaad hadaa leedahay beri caafimaad la-aan ayaa la ahaan karaa. bal xisaabtan geeridu intay kugu imaanin maxaa alla hortaysa la tagaynaa. 5 salaad waa tukataa laakiin inna laga aqbalo ma garanayno. qur-aankana waa dareerinaa kumana dhaqanno, laakiin shaydaan fara badan ayaa korki degan. salaadaada hal salaad oo tukatid oo korkaaga shaydaan ku jirin ayaa ka qiimo badan korkaaga oo shaydaan ku jiro. maalintii oo dhan waa nagnaglaysaa, waxaa la nagnaglaysaa laqwi, waxaana la nagnaglaysaa micno la-aan, waxaana ka shaqaysaa dadka kala geyntooda, dumiska guryaha, waxaad ka shaqaysaa dhibaateynta dadka, maxaa kaloo ka shaqaysaa wax kasta oo alla raali ka ahayn. waxaa kaloo ka shaqaysaa qabiilka, waxaa kaloo ka shaqaysaa waxyaabo fara badan aan soo koobi karin. wax walba oo kaa naxiya waa waxa xun, wax walba oo markaa ku dhaqmayso xun oo wadnahaaga naxiya higkaasiya waa wax xun. xasadka hadaa wadnahaaga ka dareentid malaa'igta kuma jeclaanayso. hadaa xasad tahay, hadaa masiir badan tahay malaa'igta kuma jeclaanayso. hadaa xiqdi iyo uurka dadka wax ugu haysid oo dadka cafinin malaa'igta kuma jeclaanayso. ogaada mar walbo aad dadka cafisid maha inaa iyaga cafinaysid, naftaada ayaa ugu daryeelaysaa. waxay doonaanba ha kaa halayaani, dadka waad cafinaysaa waana sii daynaysaa. alla ayaa iskale dadka, xoog kuma lihid, wanaaji sida ragtay hadaa ka weyse. wassalaamu calaykum, nabaday ku dheh oo halis nabadgelyo. walaalayaal qaaliyaal qalbi uroonayaalow, walaashiin ismahaan qaliib waxay ka hadlaysaa wadnaheeda si daacade. allah ayaa markhaati ka ah. waxaana idin leeyahay marka maxaa inoo daw ah, waxaa inoo daw ah inuu qof kasta naftiisa muhiim tahay, uuna ku noqdaa naftiisa, uuna daryeelaa qalbadiisa si uu u guuleystaa adduunyo iyo aakhiro. ogow ayaan ku leeyahay, guusha nolosha waa naftaada oo heshaa. ma aha inaa nin guursadid, inaa ilmo dhashaa, inaa sara samaysataa, inaa cilmi fara badan barataa, waxba ma aha. guusha nolosha waa naftaada oo gudaheeda gashaa, oo shayaadiinta ka saartaa, daacad noqotaa. maanta see 2 shilin iyo shilin ama waxba hadaadan helin, nabadgelyada qalbiga ayaad haysataa, farxad ayaad ku noolaanaysaa. ha ku mashquulin risqigaaga maanta iyo beriba, ilaahay wuxuu kuu qadara ayaa halaysaa. guusha waxaa aada loo baaray, guusha ugu weyn binu aadanka gaaro waa tawakal cala allah. qofkii binu aadan oo ilaahay tawakula dadaalaa, carabkiisa iyo adinkiisana laga nabadgalaa. dadka ilaahay nabadgeliyaa, hadduu wax u qaban karo ha u qabto, haddii kalena siidaa oo nabadeey, oo ha dhibaateen, ha ka daba shaqayn, cafi oo noolaada dheh, hawada u mari caafimaadkiina cafiska. walaalayaal qaaliyaal qalbi uroonayaalow, habeen ismahaan qaliib owdiyahaan idiin soo duubta, awdiyahaan codka dhageysta ku raaxaysta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.